shirkeenan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dagaalkii saaka aroortii ka bilowday aaga magaalada Ras Kamboni oo waqti dheer qaatay. dagaalkaas oo in muddo ah socday wuxuu ku soo gabagaboobay ugu dambeyntii gabaldhici ayay magaalada Ras Kamboni si toos ah oo ay gacanta dawladda Jubbaland dhammaan ugu soo wareegtay. ilaahay baa ku mahadsan. waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan ciidamada geesiyaasha ee dawladda Jubbaland ee ku jira furimaha kuwii maanta ka qayb qaatay dagaalka iyo kuwii kale khawaarijtu ay ku soo weerartay Buula Xaji iyaguna waan u mahad celinayaa. waxaan rabaa inaan runtii aan halkan ka sheego dagaalkan in badan baan anagu yaan ka dignay. dagaal xaq darro ah buu ahaa waana ka xunahay runtii sida ay wax u dhaceen ma ahayn waxaan anagu raali ka nahay waana ka dignay laakiin dawladda federaalka digniintaas way iska dhiga tirtay. runtii waxaan aad uga xunahay ciidanka Haramcad iyo ciidamada Gorgor in ay dawladdu ay u adeegsato si khaldan ciidamadii caalamka ku soo caawiyay dalkeena in loo isticmaalo arrimo siyaasadeed oo dadka lagu laayo oo deegaanada la geeyo runtii waan ka xunahay. ciidamadaas dagaalkii maanta dhacay intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan Ilaahay u rajaynayaa inuu u boogadhayo. runtii ciidamo badan ayaa isu soo dhiibay oo gacanteena ku jira. ciidankaas dawladda Jubbaland isu soo dhiibay dalkoodii bay joogaan si nabadgelyo ah ayay saacada hadda aan ka hadlayay ku sugan yihiin. ma jiro cid wax loo dhimayo ma jiro cid si gaar ah loo beegsanayo mana jiri doonto cid wax gaar ah loo dhimi doono biidnillaahi kariim. ciidamadu waajibaad bay qabaan in ciidankaas sida ugu quruxda badan loola dhaqmo. waxaan u sheegaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ciidankaas inaanan la bahdili doonin inaan la dili doonin inaan si xun loola dhaqmi doonin ayaan sheegaynaa. waan u mahad celinayaa ciidanka Jubbaland sida sharafta iyo karaamada leh oo wiilasha walaaladood ee la soo khalday ee siyaasadda lagu soo marin habaabiyay ee wala dhaqmeen maanta. waxaan haynaa dhaawac aan ka soo qaadnay goobaha dagaalka askarta dagaalka gashay khaladka male. askari baan ahay askari waajibaadka la siiyo ee saxda ayuu qaataa laakiin ciidankaas mas'uuliyadiisa waxa iskale saraakiishii soo marin habaabisay iyo madaxdii khaladkaas gashay ayaa iskale. askari ma xumaada madaxdiisa xumaata. madax xun ayaa adeegsatay annagu askariga la soo qabtay cidii si gaar ah dambi u gashay ninka guri galay ee bilaqaystay ninka naakufsaday ninka xoolo dadweyne dhacay dambiga uu galay ee gaarka ahaa sharciga u ogol taas dawladda kula xisaabtamaysa. laakiin waxaan si cad u cadeynayaa ciidamadaas dagaalka siyaasadda galay ee dagaalka siyaasadaysan ee dawladda federaalka Soomaaliya u adeegsatay in aan maxay ahaydey dagaalka ay galeen dartii aan dawladda Jubbaland aysan u ciqaabi doonin. dhaawaca si fiican baan u daryeelaynaa goobaha isbitaalada yaalaan meesha ciidankeena lagu daaweynaya iyagana lagu daaweynaya sida kuwa loo xanaaninaya iyagana loo xanaaninaya insha Allah taala. ciidanka hadda gacantanada ku jira ee dawladda Jubbaland isu soo dhiibay hubkooda iyo macal gaadiidkoodaba gacantan ku haynaa insha Allah taala. si qurux badan baana loola dhaqmi doonaa cid doonaysa inay cidooda aado oo guryahooda aadana si nabadgelyo ah anagoo waliba si qurux badan u dhaqaaleynayna oo sagootinayna oo sahayaan dirayna. ninkii raba inuu Jubbaland joogana dalkiisa oo nabad u jooga. kuwa xuduudda gudbay Kenya u gudbay iyaguna sidoo kale hadda meel nabad ay joogaan iyagana waan soo dhaweynaynaa inay wadanka ku soo noqdaan iyaga iyo hubkoodaba inay soo noqdaan insha Allah taala. waan ka shaqeynaynaa waana maartay cid wax loo dhimaayana ma jirto. waxaan leeyahay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne waad khaldantay khalad taariikhi ah ayaad gashay. waa khalad inaad dadkaaga iyo sharciga lagu egmaday ee awoodda dawladda lagu siiyay inaad dalkaaga ku hogaamiso inaad dadkaaga u adeegsato khalad bay ahayd. wixii dhacay way dhaceen waxaan rabnaa wax dambe inuusan dhicin. mas'uuliyadda dagaalkaas dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo ayaa iskale. wax kasta oo khasaare naf iyo maal meesha ka dhacay mas'uuliyaddeeda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa iskale. intaas waa intaas. sidoo kale waxaan haynaa daroontii maanta lagu soo weeraray ciidanka ee dagaalka ka qayb qaadatay gacantan ku haynaa waan soo bandhigi doonaa insha Allah taala. wiilasha walaaladeen ah ee dagaalka lagu soo khalday ee isu soo dhiibay annagu si xun oo lama dhaqmayno waan ku celinayaa insha Allah taala. sida ugu quruxda badan ee askari Soomaaliyeed loo ixtiraamo ayaan u ixtiraamayna. mar labaad waxaan u mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee dawladda Jubbaland insha Allah taala. saraakiishii dagaalka gashay iyo ciidamadii dagaalka galay dagaal xaq darro ah buu ahaa waana ka xunahay sida wax u dhaceen insha Allah taala. waxaan is leenahay waan abaal marin doonaa cid kasta oo wanaagga ka qayb qaadatay midnimada iyo dawladnimada Soomaaliya ayaan rajaynaynaa inay shaqayso. nidaamka federaalka inuu hirgalo ayaan rajaynaynaa insha Allah taala. waxaan u taaganahay habeenay maalin difaaca dalka waxaan u taaganahay habeenay maalin in aan hirgelino nidaamka dawliga ah ee federaalka ah ee ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay kaas xeerka ay sharciga ummadda Soomaaliyeed dhigatay kaas aan ilaalinaynaa kaas aan ku wada shaqeynaynaa. maanta dagaal baa dhacay oo khawaarijtu soo qaaday magaalada Buula Xaji ayay dagaal ku soo qaadeen
bulaxaaj waad ogtahay in badan ayay ku taamaysay khawaarijtu inay dib u qabsato iyagoo ka faa'iideysanaya fursadda ciidamada Soomaaliyeed ee maanta dagaalamaya ayay maanta weerar soo qaadeen waana lagu jabiyay ciidanka geesiyaasha ee Jubbaland runtii juhdi weyn ayuu maanta sameeyay oo arintaas ciidanka khawaarijta ee soo weeraray uu iskaga difaacay dowladda federaalka Soomaaliya khaladka ay gashay waa mid taariikhi ah hore u gashay xilliga hore ee dowladii Xasan Sheekh ayay gashay dhibaatadan oo kale ay dhacday waxa nasiib darro maanta ciidanka loo tababaray difaaca qaranka in loo adeegsado inay dadka walaalahooda ay xilliga ay la dagaalami lahaayeen khawaarijta maanta meelo badan oo dalkeena kamid ah oo khawaarijta ay haysata ay dagaal ka socdaan xilligii ay dagaaladaas ciidamadaas ay geli lahaayeen ay dowladdu waxay u adeegsatay inay ku burburiso nidaamka federaalka ah ee dowladda Soomaaliya ay ku heshiisay iyo ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay ciidamada gacan waliba waxay geysatay leedahay qof waliba khaladka uu galo isaga ayaa mas'uuliyadiisa